طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع لتشرفت المدينة مرحبا يا ذي الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وراء ريال وبرنامج كان امتحانها أو قهد ليني دولماتك نبي صلوات الله وسلام عليه. waxaan ku soo istaagnay qaswadii banu nadiir oon uga soo hadalnay nebigu inuu waxaa weeyaan ka saaray magaalada la yidhaahdo madiina. tanna waxaa weeyaan waxay ka mid tahay duulimaadkii nebiga uu duulay salawaatullaahi wasalaamu calayh, oo uu duulay markaan dhinaca waxaa weeyaan waqooyiga. awal waxa weeyaan dhinaca waxay ahayd koonfureed oo maka waxa weeyaan xaggeeda ah. maantay xaggaa loo duulaya. qaswadan waxa la yidhaha dowmat aljandal. dowmat aljandalna waxaa loo jeedaa waa meel waxa weeyaan suuqu wuxuu ahaa la isugu yimaado oo biyo leh oo dhagax taaltaallo, markaasaa loogu magacaabay dowmat aljandal baa lagu magacaabay. goormay dhacday qaswada tani? duulimaadkan goormuu dhacay? waxay dhacday bishii rabiic alawal sanadkii shanaad oo hijrada nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh. waxay dhacday bishii rabiic alawal sanadkii shanaad oo hijrada nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh ayay dhacday. sababtuna waxay ahayd nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh markuu ka soo noqday qaswada la yidhaahdo beder, oo mandiqadii nebiga uu ku noolaa oo dhan ay noqotay mandiqa waxa weeyaan ereyadii uu ku noolaa nebigu ereya aamin ay noqotay, oo islaamka loo ogaaday inuu xoog leeyahay, baa waxaa soo gaartay nebiga akhbaar qabaa'il ka mida qabaa'ilka carabka oo dhinaca yani waqooyiga dega inay halkaas waxa weeyaan isku urursadeen oo ay ku samaynahayaan qof allaala qofkii doonaya madiino inuu u geeyo waxa weeyaan tijaaro ama uu ka soo qaato inay dariiqa waxa weeyaan u fadhiisanahayaan. waa cuno qabatayn dhaqaale bay rabaan inay nebiga ku sameeyaan salawaatullaahi wasalaamu calayh. qof allaala qofkii soo marana waa ku xadgudbahayeen, saasay ugu xadgudbahayeen oo waxa weeyaan maalkana ka qaadanahayeen, haddii doonaan isagana ay dilahayeen. waa arrin waxa weeyaan aada u xun oo dariiqa dadka in laga gooyo, oo dadkii waxa weeyaan tujaarta ahaa oo ka imaanayay shaam in waxa weeyaan dhibaato loo geysto, oo muslimiintii aysan u imaan waxa weye wax dhaqaalo ah ama tijaaradooda halkaa ku go'do, oo muslimiintii waxa weeyaan waxba laga gadan ama ise waxa weye wax ka gadan. waa arrin aan loo dulqaadan karin. nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu doonay inuu ka qaado magaaladiisii dulmigaas dariiqaas waxa la goynaya dadka lagu goynahayana dulmiga inuu ka qaado damcay. markaasuu waxa weeyaan duulimaadkan ku saaray, markaasuu soo aruursaday ciidamadiisii, halkaasuu waxa weeyaan muslimiintii ou yidhi waa aadaynaa, markaasuu la baxay muslimiintii. marka si loo suuliyo dhibaatadaas taalla iyo waxa weeyaan guurgurbaadka halkaa ugu imaanay nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh, waa arrin in lagu guulguulo nebiga halkaas
ama dhibaata ay uga timaado halkaas waxa ka qabata ma ahan sida looga gooyo arrintaas ayuu nebigu ciidamadiisa halkaa u diray waa tahdiidaad aada u weyn oo nebiga halkaa uga timid oo waxa weeyaan dhinaca waqooyi uga timid oo awal aan jirin oo dadkiina waxa weeyaan loo diiday inay wax kala gataan markaasuu asxaabtiisii nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayuu la baxay markaas wuxuu kaxaystay nin dariiqa tusinaya nebigu khazawaadkan oo dhan wuxuu u kaxaysanahayaa mar kasta qof dariiqa yaqaana waa saa hore usoo sheegnay ciidamada markaad waxa weeyaan xukuntid ama aad tahay nin waxa weeyaan hogaamiye ah ciidamadaadii meel aadan ka warqabin ama dariiq aadan aqoon looma jeexo oo looma diro ama looma waxa weeyaan horkaco waa inaa haysatid dadda dariiqa yaqaana oo ku dhahaya halkan lama maro halkan biyay leedahay halkan waa sahlan tahay halkan waa dhib badan tahay wuxuu kaxaystay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh nin la yidhaahdo madkuur ayuu kaxaystay oo doonaya inuu waxa dariiqa tusiyo ilaa uu ka gaaro meesha la yidhaahdo dawmata jandal nebigu saas ayuu yeelay ninkaas ayuu kaxaystay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dawmata jandal markuu yimid akhbaartii baa waxa weeyaan soo gaartay dadkii halkaa deganaa maxamed inuu soo baxay oo doonaya waxa weeyaan nimanka dariiqa goynaya inuu waxa weeyaan ka qabto waxay ogaadeen waxa weeyaan inaysan nebiga u bambixin karin markaasay waxa weeyaan kala carareen oo waxa weeyaan buuraha iyo godadka ay ku noolaan jireen ayay galeen nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuu soo socday ilaa uu ka yimid meesha la yidhaahdo dawmatu jandal meesha la yidhaahdo waa meel waxa weeyaan ceel biyo leh oo laga cabo waxaa kaloo ku yaalay meeshaas suuq ayay ahayd oo dadku waxa weeyaan iskugu yimaadaan oo wax lagu kala gato oo lagu kala qaato bay ahayd markaasuu nebigu waxa weeyaan halkaas u yimid markaasuu waxa weeyaan uu degay halkaas maalmo ayuu fadhiistay markaasuu waxa weeyaan wuxuu bilaabay halkaas inuu diro asxaabtiisi inuu diro oo markaa weeyaan uu yidhaahdo soo fiiriya waxaa la dirahayaa dhiman la yidhaahdo wardoon oo waxa weeyaan 10 nin 20 nin oo waxa weeyaan ciidamo oo hubkooda wata baa la dirahayaa markaas waxay soo fiirinayaan cadowgu intuu leeyahay markaas waxay ka soo dhacayaan ciday arkaan geeb waxa ka soo xoolii bay ka soo dhacayaan nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wadisi bi gooyeen nabigu waxa weeyaan halkaas u diray markaas waxay la soo noqonayeen ciidamo kasta oo diro nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sariyad kasta oo diro waxay la soo noqonaysay waxa weeyaan geel bay la soo noqonayeen geel bay ka soo dhacayeen ama waxa weeyaan ari bay ka soo dhacayeen markaasay nebiga ula imaanayeen isagoo jooga nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh dawmatu jandal halkaa isagoo nebigu jooga bay loo imaanayeen ilaa sariyad keliya oo la sariyatu maxamed bin maslama radia allahu tacaala canhu waxay soo qaateen nin bay soo qabteen oo waxa soo qafaasheen markaasay nebiga u keeneen ninkii waxa weeye markuu u yimid waa islaamay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh wax kale ma doonayn danta ilaahay diinta in la gaarsiiyo qofkii islaama waxba lagama rabin ma islaamtaa iska tag xoolahaaga aad maalkaaga qaado nin muslimaad tahay wax lagaaga rabo lama arko halkaasuu waxa weeyaan qofku aamin ku noqon hayay nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma uu doonay inuu cid dulmiyo laakiin dadkaan ayagaa waxa dulumka u dhashay dulmiga ay samayn jireen nimankaas ahlu dawmatu jandalna waxay ahaan dariiqay goon jireen waxaa moodaa inay u dhowaayeen qolooyinkii waxa weeyaan shucayb oo kale oo waxa weeyaan qowmu shucayb oo kale waxay samayn jireen ciddii tijaaro samaynaysa way goon jireen wataqtacuuna sabiila yani baasay u goon jireen waddada waxa weeyaan ay dadku cabsiin jireen marka nimankan waxa weeyaan waa qutaacu turuq waa nimanka la yidhaahdo waxa weeyaan yani carajiifta aan naqaano weeyaan oo nimanka waxa weeyaan carajiifta loo yaqaano ama jiriga loo yaqaano bay ahaayeenoo waa nimankaas jiriga oo iska joogay cid alla ciddii waxa weeyaan tijaaro wadata ay dhacayeen marka jiri bay ahaayeen halkaasaa waxa weeyaan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh jirinimadii uu kula dagaalamay suuqiina waxa weeyaan markii la maqlay maxamed baa yimid sanadkaa lama imaane cid kasta waxa weeyaan way carartay markaasuu nebigu waxa weeyaan suuqii la iskugu imaan jiray ayuu fariistay oo la dhihi jiray dawmata jandal ayuu waxa weeyaan nebigu fariistay markaasuu wuxuu diray asxaabtiisii ayagoo waxaan warkii u keenahaya
markaasay warkii u keeneen nebigu markuu halkaa wax badan fadhiyey oo ay ogaadeen cadowgiina ay ogaadeen inaysan nebiga salawatullahi wasalam la dagaalami karin nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi waddadiina uu aamni ka dhigay oo markaas waxaa weeyaan cid awrtii tijaaro wadata ama ciddii tijaaro wadata oo madiino u socota ama madiino ka soo baxday oo waxa weeyaan intay wax ka soo gateen shaam u socda aan loo banbixin aan wax dhibaato loo geysanayn markuu nebigu ogaaday ayuu waxa weeyaan yidhi arrintu hadda waxa weeyaan waa fiican tahay dib buu iskaga soo noqday wax dagaala oo dhacayna ma jirin waxaa kaloo ogaaday qabaa'ilkii nebiga meelaha deganaana waa cabsadeenoo waxay ogaadeen nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh ciddii doonta inay waxa weeyaan ka hor timaado ama waxa cunaqabateyn ku samaysto inuu nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh la dagaalamahayo ousan u daynayn halkaas waxa weeyaan ay darsi adag au siinhayo markaas waxba la dagaalamahayo maxaa yeelay maalku waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa waa wax qofku waxa weeyaan uu ku istaagay ilaahay qur'aankiisa uu ku sheegay maalka markuu ka hadlahayay oo ilaahay qur'aankiisa uu sheegay wuxuu ku magacaabay nolosha meeshay ku istaagto walaa tu'tu sufaha amwaalakum alatii jacala lakum qiyaaman warzuquuhum fiiha waksuhum maalku qofku waxa weeyaan haddii lagala dagaalamo qofku waxa waa baaba'aya farzuquuhum biha maalkii waxa weeyaan aynu ku noqon qiyaaman aad ku istaagayseen qofku hadduusan maal haysan ma istaagi karo gaajo dhul kula dhacaya wax kasta waxa loo imaanaya markaasaa leeyahay intaasoo maalan ku siinaynahay waxa weeyaan arrintaa noo samee intaas qaado arrintaas samee baa leeyahay qofku hadduu gaajaysan yahay marka waxa weeyaan ou saxba haysan oo faqiir yahay wuxuu doonuu samaynaya waxa weeyaan xoola suu helo weeyaan waa sida dhibaato weyn baa taalla markaasuu yacni sidaan looga goyn magaaladiisii in waxa weeyaan tijaaradii ay ka dhacdo lakala bedasho wixii tijaara ahaa madiina timir baa laga qaadan jiray magaalo waxay aad loo yaqaano in timirta waxa weeyaan fiican taallo cajwa timirta yahada ka soo bixi jirtay timir fiican baa taallay markaasaa laga qaadan jiray waa la yaqaanay timirteeda markaasaa waxa weeyaan shaam la geyn jiray shaam waxa hadda laga soo qaado bay haddana waxa weeyaan madiina la keeni jiray waddada haddii si aamin ahayna tijaaradii ma soconayso marka waa in ciidan loo diro waddada waxa weeyaan amniye aamin ka dhiga oo waxa weeyaan joojiya waxa weeyaan waxa dhaala wixii waxa weeyaan tijaarada muslimiinta ka hor imaanahaya nebigu arrintaas cid uma u dirin laakiin nafsadiisa ayuu ku bilaabay inuu baxo arrintaas ayuu nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi ayuu sameeyey markaas islaamkiina aan lagu xadgudbin waddooyinkii islaamka waxay maslaxadda ugu jireen aan lagu xadgudbin oo loo mariyay shaab ka bacdina waxa weeyaan waxay noqon doontaa waddo loo maro waxa weeyaan ay muslimiintu intay maraan ay ku furtaan waddanka la yidhaahdo shaam sida suuriya iyo waxa weeyaan urdun iyo falastiin waddamadahaas o dhan waxaa la isku dhihi jiray shaam baa la isku dhihi jiray lubnaan falastiin waddamadahaas o dhan waxa marka laysu keeno waxaa la yidhahdaa shaam baa laysku yidhaahdaa oo waxa weeyaan waa wax alaala wixii ka jira dhinaca midigta ah magaalada la yidhaahdo madiina munawara ka jira halkaas ayay ahayd marka nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh markuu waddadii aminay oo halkaa fadhiistay oo wax badan fadhiyey buu wuxuu yidhi waxa weeyaan asxaabtiisii hadda waxa weeyaan waddada waxa waa aamin aan dib u noqonno marka qaswadatan wax dagaala oo ka dhacay ma jirin waxaa kaliyoo laga helay qof islaama ayaa laga helay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh uu arrintii siduu cali ku yidhi waa xaqiijiyey lian yahdiyaka allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam nin baa kusoo hanuunay oo diinta kusoo galay duulimaadkaa la qaaday qofbaa kusoo maxamed muslama u keenay waxay kaloo muslimiintu ka heleen geelna waa ka soo dhaceen nimankii waxa weeyaan gaalada ahaa oo doonayay waddada waxa weeyaan muslimiinta waxa weeyaan inay ka soo qaadaan marka diinta islaamku waa diinu hidaaya waa diinu cadaala waa diinu nidaam dadkan waxa weeyaan samaynahaya carajiifyada oo xoolihii waxa weeyaan muslimiinta dhacahaya xaqla-aan ku dhacahaya oo xabadda ku furhaya nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh inuu asxaabtiisa u diray iska dhaafay isagaa ku baxay oo yidhi waxa weeyaan arrintan anaa gacantayda ku joojinahaya sidaas daraaddeed qaswad waxaa laga qaadanahayaa laga faa'iidaysanahayaa darsi ugu horeeya in lala dagaalamo dadka waxa weeyaan waddooyinka gooya
oo muslimiinta waxa weeyaan cabsiiya oo maalkooda waxa weeyaan doonaya inay ka dhacaan maalku waxa weeyaan waa waxa qof muslimka uu ku istaago arrintaas haddaan la samayn waxaa dhacaysa fasaad badan baa dhacahaya waxaa joogsanahaya tijaarad baa joogsanaysa waxaa joogsanahaya waxbarasho baa joogsanaysa waxaa joogsanahaya amnigii baa gacanta ka baxaya intaas marka waxa hadday gacanta ka baxdo amniga hadduu gacanta ka baxo oo maalka gacanta ka baxo oo nimankaas maalin kasta waxa weeyaan oo nafsadii baa waxay gelaysa halis gelaysa oo maalin kasta waxa weeyaan ninkii waxa dariiqi marayay xabad haddii lagu furo war anigu waddadatan waxa weeyaan maalin kasta dhibaatada ka dhacayso ma aadi karo ayaa la dhahayaa marka waxa weeyaan nebigu salawaatullahi wasalaamu aleyh ummaddiisa wuxuu baray inaan loo baahnayn in qofka muslimka ah markuu muslim yahay inuu arrintaas sameeyo dadka waxaa samaynaya muslimiin ma ahan waxaa lagu yaqaanaa gaalaa lagu yaqaanaa oo taariikhdu inoo qorayso waa ujeedaan oo waxa weeyaan nin gaal ah niman gaalo ah baa waxay u istaageen dariiqii waxa weeyaan tijaarada gooyey mar lama taariikhda laguma hayo niman muslimiina oo ilaahay ka cabsanaya oo dariiqii muslimiinta waxa tijaaradoodii waxa weeyaan goynaya inay waxa weeyaan amni ka dhigaan mooyaane ma gooyaan marka waxa weeyaan muslimiin allah laga qabsado oo dadkan waxa weeyaan dhowr shayba samaynaya muslimiin Soomaaliyay waa ina waxa weeyaan xal loo helo nimankan la yiraahdo rajiifka ama isbaarooyinka dhiganahaya oo doonaya dadka muslimiinta maalkooda inay waxa weeyaan ku qaataan xaq la'aan waxaa loo baahan yahay waa darsiga laga qaadanayo qaswadatan in waxa weeyaan la joojiyo midda labaad waxaa laga qaadanayaa qofka hadduu ilaahay hal qof ugu hanuuniyo in ajir badan leedahay maxamed bin maslama markii waxa weeyaan uu keenay xoolihii nimankii keenayay waxa weeyaan qofkii islaamka loo bandhigaya islaam markii loo bandhigo hadduu qaato qofkaas waxa weeyaan waa qof muslima walaalkaa dhibaato looma geynaysid hanuunka uu galay adigna qayb baa ku leedahay lian yahdiyaka allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam waxay kaaga waxa weeyaan khayr badan tahay in ilaahay ku siiyo geela waxa weeyaan kiisa waxa weeyaan geela kiisa waxa weeyaan xumuri nacam waxaa lagu magacaabaa geela kiisa waxa weeyaan cas geela cas oo waxa weeyaan tuludda cas baa lagu magacaabaa xumuru nicam geela kiisa gadgaduudan oo waxa cas baa lagu magacaabaa waxa weeyaan geel guduudan waxaana looga jeedaa geela kan ugu fiican baa la yiraahdaa waa midabka ugu fiican geela cas waxa weeyaan ama guduudan waa midabka ugu fiican laakiin maanta geeli hadduusan jirin waxaa laga yaabaa inay waxyaalo kale oo ka fiican qof muslimka ah oo maanta uu rajaynayo hadduu sameeyo inay u gasho booskiisii markii ilaahay kuusa hanuuniyo marka hanuunka dadka in lagu dadaalo baa loo baahan yahay ilahay wuxuu noo soo diray inaan dadka soo hanuunino oo dadada waxa weeye diinta islaamka ugu yeerno oo xaqa waxa weeye qofka muslimka loogu yeero ama gaala loogu yeero laakiin aynama soo dirin waxa weeyaan qofkii intaan tuhmo u samayno inaan ku dilno ama dhahno qofkan waa gaale ha la iska dilo laynama soo dirin waxaa laynoo soo diray dad waxa weeye dadka hanuuninaya oo waxa weeye dadka wax wanaag u sheegaya oo wadad khayr tusinaya oo waxa dhahaya diinta islaamku waa diin sahla waa diin khayr ugu yeeraysa waa diin waxa weeyaan aan ogolayn dariiq in la gooyo waa diin aan ogolayn waxa weeyaan dadku waxa weeyaan inay waxa weeyaan isqiyaamaan waa diin aan ogolayn mujtamac dadka waxa weeyaan ku nool bulshada ku nool inay xumaan ka dhex dhacdo kullu hada diinteena in amraysa inagiina waxa weeyaan waxaan samaynayna waa ujeedaan qofkii waxa weeyaan hadday ka dhacdo macsi oo muslimka ah ina hanuunisid ma ahane inaa waxa weeyaan dishid ma ahan diliinku waxa weeyaan waa arrin xun nabigu waxa weeyaan marnaba qof waxa weeyaan arrintan ma sameyn midda labaad waxaa laga qaadanayaa arrinta tan qofku hadduu waxa weeyaan hogaamiye yahay hogaamiye waxa weeyaan fiican inaa noqotid baa laga qaadanaya oo nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh markuu aaday tuumata tandal ninkii dhihi jiray mudrik wuxuu yiri waddada itus markuu madiine usoo haajirayena waxa weeyaan cabdullahi ibnu uqayd oo waddada garanaya waatuu waxa weeyaan soo kaxaystay isagii abubakar oo waddada waxa weeyaan tusinayay oo waxa weeyaan markaas la maray duruq aan dadku aqoon la soo maray sidaas daraaddeed hogaamiye kasta waxaa looga baahan yahay ama ha ahaado aabe ha noqdo aabuhu waa hogaamiye hooyaduna waxa weeyaan waa hogaamiso ninka waxa weeyaan qabiilada ama tolka madaxa u ah oo waxa weeyaan sultaanka ah isaguna waa hogaamiye dowladdani waxa weeyaan ninka xukumayaana waa hogaamiye ciidamada ninka xukumayaana waa hogaamiye kulligeen hogaamiye ayaan nahay
halkee waxa weeyaan ku hogaamina waddo aan naqaano mase waddo aanna aqoon waxaa laynoo ka baahan yahay kulligeen cilmi baa laynoo ka baahan yahay ninkaas waxa weya nebiga u karaystay cilmi buu lahaa cilmigu laa muxuu ahayd waddaduu garanayay nebigu waa u qiray cilmigu garanhayay waa loo ogolaaday cilmigu garanaya waa loo ogolaaday waxaa la yidhi cilmigan baa taqaana na tusi waddadii na tusi baa lagu yidhi marka qof kastoo innaga ina ka mid ah hadduu aabbihii hogaamiye yahay hooyada hogaamisaha ay tahay ninkii waxa weeyaan suldaanka hogaamiyaha hadduu isagu uusan waxba garanayn ka waran hadduusan isagu waxba garanahayn bal ka waran sidii ninka la yidhaha axnaf binu qays oo nebigu ku magacaabay alaxmaq almutaac oo qoomkiisa waxa weeyaan ku hanuuniyey ama abujahal oo kale alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran wa axalluu qowmum daara albawaar ilaah uu ku sheegahayo qofka hadduusan cilmi lahayn haddina au yidhaahdo waxa weeyaan tolkii ama qabiiladii ama waxa weeyaan beeshii anaa hanuuninahaya waxa weeyaan qalad weeyaan nebigu waxa weeyaan asxaabtiisa oo dhan oo waaweyneyd baa la socotay ma u dhihin waxa weeyaan halkaas inoo dhiga ninkaasaa la yeelay waxaa la yidhi waddayna tusi meeshuu yidhi aan marno baa laga yeelay waana arrin nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh hadda keliya aan ka dhicin dhowr jeer ka dhacday sidai inoo soo martay qaswadii la dhihi jiray di amar sida inoo soo martay hijradii nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh sida yani qaswadatan waxa weya dowmatu jandal hadda aan ku jirno hadda u kacaysta nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh marka qofku waxa weeyaan markuu waxa weeyaan yahay hogaamiyuhu waa inuu dadku hogaamiyo cilmi waa inuu leeyahay cilmiga ugu horeeya qofku waxa u baranaya waa cilmiga tawxiidka hadduusan tawxiid qofku lahayn dadki muxuu ku hogaamin gaalnimo ku hogaamin hadduusan waxa cilmi lahayn dadki muxuu barin jahli buu barin lidalika ilaahay ahlu kitaabku wuxuu uga digay bay ka mid ahayn yaa ahla alkitaabi laa taqluu qul yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum walaa tattabicuu ahwaa'a qowmin qad daluu min qabl waadaluu yaa ahla alkitaabi لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قف سوى وحويان كرمي وددي وحويان حنين سنيد ما يو وحوي هنونين يا دتك ويان مركا وحويان waxa ugu horeeya oo qofku waxa weeyaan dadka uu barayo waa inay hanuun yihiin marka daliil waxa lagu magacaabaa waa qofka waxa wax tusinaya weeyaan اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مدركا دليلا بعلماء بيليه وحكسميسته waxa weeyaan daliil والدليل waxa ما يدل على شيء wixii wax ku tusinaya ويشدك إليه waxa koo lagu magacaabaa qofkaas waxa weeyaan qofkii dadka tusinaya waxa lagu magacaabaa daliil baa lagu magacaabaa waxa qofka dadka wadada tusinaya waa daliil baa la yiraahdaa waxa ku tusinaya nabiguna salawaatullaahi wasalaam dadka khayrkaas ay u yeerayay oo tusinayay markii waxa weeyaan la gaarina halkaas waxa weeyaan ayuu la qaatay wadadii oo nabigu ka qaatay mudrikan wuuna ka yeelay ilaa uu ka gaaray doomatu jadal bisalaam markii dambe la soo noqday nabigu ma u baahan yahay daliil qof wax tusimo yaqaana ma u baahan yahay ma baahna weeyaan wadada haddaan soo marnay waa aqaanaa uguma baahna weeyaan waxa weeyaan markaan uguma baahna madiina waa garanaa wadda u marno waa maca salaama weeyaan uma baahna weeyaan laakiin waddada aadan garanayn baa waxaa loo baahan yahay qofka inaad tidhaahdid ii sameeye waxa weeyaan itusi markaa adigu cilmi u leedahay haddaad tidhahda waxa weeyaan anigu wixii cilmi uma lihiye waxa ma garanayo oo mid kale waxa jahilo ku yimi uu yidhahda anaa garanaya oo haddana uga aamusid wax dhibaato labaad weeyaan dhibaato labaad weeyaanoo qofku markuu wixii cilmi u leeyahay waa inuu wuxuu yidhahda anaa cilmi u leh arrintaasna waxa weeyaan qur'aanku daliilba ayay ku leedahay waxaa mithaal usoo qaadan karnaa oo arrintaas ku tusin karaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii waxa weeyaan uu nebigii yidhi waxaan kaa yeelaynaa dhulkaan ku dhiibaynaa muxuu yidhi qaala ijcalnii calaa khazaa'ini alardi innii xafiidun caliim lama baahna marka waxa daliilkii adigoo waxa weeyaan daliilkii haysta oo nusuustii haysta inaad tahay nin jaahil ah iga hormaro ama tirahda waxa weeye nimaan wax garanayn takhasuska aan garanayn isagaan uga dambaynaya qof kasta takhasus ayuu leeyahay takhasuskiisa haddii waxa weeyaan laga soo galo waxa weeye qof kale aan aqoon soo galo dhibaataa ku dhacaysa waxa weeyaan waxaan loo bahayn ayuu samaynayaa sidaas daraadeed waxa weeyaan nebigu wuxuu yidhi maalinta yowm alqiyaama ama aakhiru zamaanka isagoo ka sheekeynaya arrintan oo kale caddaynaya qofku waxa weeyaan wuxuusan cilmi u lahayn ama uusan wax daliil u lahayn uu qaadanaya inay waxa weeyaan qiyaamuhu istaagayso
waxaa la yidhi nebigu uu yidhi goomay qiyaamuhu dhacaysaa baa nin weydiiyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi faاntadir الsaaca ninkan daliil buu ahaa oo waddada kale u garanaya laakiin haddii qofkii waxa weyan wuxuusan garanayn loo dhiibo oo la yidhaaho adaa waxa way madax noogu ah qiyaamihii baa dhacaysa weeyaan soomaaliduna waxay tidhahdaa waxaas waa nin waxa weeyaan hal waa nin indhala hal uu hogaamiyey marka waxa weeyaan ninku hadduu waxa indhala yahay ritigiina loo dhiibo dadkii waxa weeyaan waddo fiican ma ku hanuuninhaya ma geynaya isaga waa indhala yahay ritigiina waxa weeyaan hoggaankiisa isagaa haya dadkiina waa saaran yihiin bal ka waran halkee buu geynaya god buu ka tuurayaa weeyaan idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi faاntadir الsaaca qiyaamihii waxa weya inay kugu dhacdo sug weeyaan marka waxa weeyaan qaswadatan darsiga koow ugu weyn oo laga qaadanayo waxa weeyaan qofku waxa weeyaan inuu waxa weeyaan raaco qofka waxa weeyaan cilmiga leh in la raaco oo la maqale weeyaan waxaan loo baahan yahay kale culummadu inaysan waxa weeyaan raacin dadka caamada ah laakiin culummada ay waxa weeyaan la raaco oo hadalkeeda la maqlo sida loo maqliyo qofka waxa weeyaan sidoo kale waxaa la mid ah mithaal kale waa aad u qaadan maanta haddii waxa weeyaan nin intuu waxa weeyaan soo ordo diyaaradda waxa weeyaan horteeda u fuulo oo yidhahdo diyaaradda aan idin kicin idinku wadaya hawadaasaan idinku duulinaya ma laga yeelaya diyaarad keliya wax yar ah baan laga ogolayn inuu qofku waxa weeyaan isagoo aan aqoon u kaxeeyo u dhaqaajiyo see loogu ogolaanaya diinta ilaahay qof aan aqoon inuu yidhahdo anaa dadkii waxa weeyaan culamo u noqonayo hogaaminhaya oo waddadiis tusinaya see looga yeelaya waxaana la iska daayo culummada waxa weeyaan ilaahay taqaano oo diinta taqaano ha laga maqlo soomaaliyey maanta waxaa batay nin kasta waxa weeyaan intuu waxa weeyaan shaati xirto ama waxa weeyaan cimaamad soo xirto inuu yidhaahdo waxa weeyaan anigu sheekh baan ahay sheekh fulaan baan ahay sheekh fulaan baan ahay sheekh fulaan baan ahay wax daliila uu leeyahay lama arko nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ciidamadiisii wuxuu ugu duulo ninkaas waxa weeyaan keliya ayuu leeyahay kulligan aan dabagalno waddadiisoo inoo tusiyo markaas waxa weliba laga yaaba lacag ina siiyey marka seed baan u dhici kartaa arrintaas walaalayaal weeyaan dib ha la isugu noqdo oo arrinta dib ha loo daraaseeyo oo qofku ilaahay waxa weeyaan dadku ilaahay ka cabsadeen arrintaas markay dhacday qaswadii waxa weeyaan faa'iidadii laga helay ama laga helay maxay ahayd nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu degay meeshii la diiyo dowmatu jandal ayuu waxa weeyaan nebigu fadhiistay markaasuu wuxuu diray oo halkaa ka diray ciidamadiisii buu ka diray ciidamadiisi markuu diray waxaa nebiga u keenay isagoo jooga geel bay u keeneen wuxuu kaloo diray ciidamo kale ku diray waxaan soo sheegnay sariyatu maxamed ibn muslama waxay u keeneen nin baana islaamay markaasna waxa weeyaan dagaalna ma dhicin kabacdi waxa weeyaan wuu soo noqday nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh asxaabtiisu iyo dowladdii islaamka ahayd cidna kuma xadgudbin waxay keliya oo sameeyeen in waxa weeyaan waddadii lama marahayey madiina oo tijaaradeedu ay ku socotay in waxa weeyaan la aamino waxaa ka dhalatay inay aamin noqotay oo markaa tijaaradii ay furantay oo muslimiintii iyo gaaladii wixii waxa weeyaan isdhex markii ay dhacday oo magaaladii waxa madiino waxa aysan ka cabsanayn aysan jirin ay markaa furantay waddadii nebiguna waxa weeyaan uu soo noqday isagoo waxa weeyaan ibil ama waxa weeyaan geel badan oo dadkii nimankaas dhihi jiray dowmad halkaa dega oo ka soo qaatay waddadiina ay aamin noqotay muslimiintiina aysan waddadoodii ka cabsanahayn tujaartii aan muslimiinta ahayn oo watay waxa weeyaan yani maalkooda doonaya inay siyaadsadaan ay soo mareen madiina waxay doonaan ay ka gataan haddana waxa weeyaan ay madiina waxay doontaan ay ka qaadaan oo markaa shaam ula tagaan muslimiintuna waxa weeyaan waxay ugu baahan yahay ay ka soo qaataan waddadii aamin ay noqotay waa arrin loo baahan yahay inuu qofku muslimka uu ku dadaalo oo waxa weeyaan maalka iyo mu'miniinta waxa weeyaan maalka mu'miniinta aan lagu cayaarin iyo maalka waxa weeyaan dowladda muslimiinta dadka u dhow aysan lagu cayaarin markaas waxa weeyaan aan maantay dowladaha waxa weeyaan inala degan oo jaarka inala hadday waxa weeyaan tijaaro furan tahay in muslimiintu ay waxa weeyaan dhibaato u geystaan oo waxa weeyaan dadkii wax ka gadanayay ay dhibaato u geystaana
looma baahna oo sidaas nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh uu sameeyey baa loo baahnay in waxa weeyaan looga sameeyo. waxaa moodaa qaswadatan in intaas kusoo dhammaan doonto oo waxa wax dagaalana aysan ka dhicin. dawmatu jandal baa la yidhaahdaa. duruus laga faa'iidaysana waa soo sheegnay. marka waxaa igala socotaan walaalayaal qaswadan qaswada ku xigta oo waxa weeyaan aan uga hadli doono qasawaadka nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi. intaas ayaan kusoo gaabsanaynaa. waxaan idin rajaynayaa cilmi naafica iyo camal saalixa ilaahay inuu ina siiyo. wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. مرحبا يا خير وداع. goormay dhacday qaswada la yidhaahdo dawmatu jandal? 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 طلع